بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan iyo sanad farxadeed ayaa waxaanu leenahay afar kooxoodba. waa kuwa ugu horeeyay waxa weeyaan martidiina sharafta leh ee nagala soo qayb gashay xafladan ee hoteelka Jubba caawa noogu timid. labaade waxaanu leenahay sanad farxadeed iyo habeen wanaagsan iyo ciid wanaagsanba dhammaanba daawadayaasha qaayaha leh ee nagala qayb caawa xafladan telefishanku suubinayo ee naga fiirsanaya hadda telefishanadooda. mar saddexaadka waxaanu sanad cusub ilaahay haynoo wanaajiyo oo wanaagsan aanu leenahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed kana ummadaha adduunka oo dhan. shukri maxaad ku darlay? waxaan leeyahay dhammaanba daawadayaasha qiimaha badan ee hawada naga fiirsanaya habeen wanaagsan marka hore, marka labaadna sanad wanaagsan iyo ciid wanaagsan intaba. waa tahay waxaan filayaa caawa waxaynu sagootinanaa sanad, waxaan soo dhawaynaynaa sanad cusub, waxaan sagootinanaa 10 sannadood oo isku buuxsamay, waxaan soo dhawaynaynaa 10 sannadood oo soo socda. waxaan sagootinanaa sanadkii 1989 oo la tegay uguna dambeeyay soo dhawaynana sanadka 1990 isaguna la iman doona 90-yadoo dhan 90aadka. waxaan leenahay oo intaas inoo raaca sida qaal ama alaaba dadku u badan yahay waxa loo xafladeeyaa sanadka cusub ee soo socda. kii hore waa la iskeel laakiinse qof walba nabiga khayr wixii uu kala kulmayba isaga leh waaye. waxaanu saleenahay ilaaheen ma ilaawi karno, waa in la ducaystaa, waa in la yiraahdo mar walba ilaahow dhibta naga saar. aamiin dhaha ilaahay waxaan ka baryanaa inuu inooga dhigo sanadkii bashbash iyo barwaaqo iyo raxmad iyo caafimaad iyo cilmi. waa laygaga wanaagsan yahay ilaahay inta khayr loo dhan hayna siiyo. aamiin dhaha ilaahay shar oo dhan haynaga duwa. aamiin dhaha waa tahay intaasi markaynu ducaysano caawaxan telefishanku ugu talagalay sanadka 1990 waxaanu jecelahay inay ka koobmaan heesa aad u macaan oo aanu jecelahay soo xulay fanaaniintii codka baxsanayd ee qaranka barkood. waxaanu idin haynaa tartanadaasi waxa weeyaan saaxiibayaal waa intiina martida ee Jubbana la fadhida number dadka qaar baanu number siin, annaguna numberkaasi waanu haysanaa. numberkaasi ayaanu u yeedhanaa, deetana su'aal baanu weydiinanaa, deetana waxa la siinayaa abaalgud hadduu ka soo baxo. shukri baan nagu wareejinayaa tartankii isagoo inoo furmaya. waad mahadsantahay cawke. xafladan caawa mudanayaal iyo marwooyinba waxaa ka buuxa qodobo fara badan sidii uu cawke hore idinkugu sheegay oo maaweelo ah, laakiin maaha muhiimaddu aan u suubinayno in aad daawataan oo keliya, balse waxaanu jecelahay oo aanu idinku martigelinay in aad nagala qayb qaadataan oo barnaamijka aad ka mid ah soo gashaan dhammaantiinba. haddaba waxaan jeclahay inaan soo qabto lambar ka mid ah lambarrada aad haysataan oo dadweynuhu ay haystaan. waa loo yeerayaa, halkaan buuna imaanayaa. waxyaabaha aan warsanan waxaan jecelahay inuu sida ay tahay uga jawaabo. waa tahay lambarku waxaan jeclahay inuu noqdo waa nasiib. waxaanu soo qabannay qofka haysta lambarka 87 waa 87. qofkii haysta ha noo yimaado lambarkaas. waxaan ka xumahay in aad soo dahday, laakiin magaca
magacaaga yani wada garanayaan waa maxamed axmed xaaji oo kaasha idaacadda telefishinka nasiib wanaag lambarkiisii waa kan u horeeya haddaba maxamed waxaan jeclahay oo halkan lagaaga saaya muusigaas waxa weeye hees ka mid ah heesihii qadiimiga ahaa ee dalkeenna laga qaadi jiray haddaba waxaa lagaa rabaa in aad garato muusigaas heestii uu ahaa marka labaadna hobalkii ku luuqayn jiray labadaasba waan kaa rabaa maxamed dhegaysta marka hore muusiga su-aashii haddii aan u soo laabta la weydiiyey jawaabteedu waa sida soo socota anoo filaya inay noqon doonto walow myuusigu uu iga horreeyey oo markii lagu luuqayn jiray ay dhici karto inaananba dhalan hase yeeshee haddiiba aan marar badan maqlay markii aan xoogaa soo kobcay muuqaalkayga iyo da'daydu isma laha dad badan baa xoogaal u ah heestaas myuusigeeda la garaacay maadaama aanan jirin laakiin aan dhegaysan jiray waxa ay tahay heesta la yidhaahdo banaadiri waxaana ku luuqaysa fanaanada magool iyadoo weliba fanaaniin badan oo Soomaaliyeedna heesta ay qaadaan rag iyo dumarba laakiin codka aan sida gaarka ugu dhageysto waa Xaliimo waana mahadsantihiin waad mahadsantahay maxamed ukaadi weli kuma dham waad gudatay waajibkii aan ku warsaday laakiin hal waxaan ka rabaa hal bayd oo heesta kamid ah inaan noogu luuqayso runaantii as kuma qaadi karo ay u adag yahay laakiin cod kale ayaan qaadi karaa waxaan si jecel kale liiga dhigo waxaa jira oo istagma yeerin dadweynaha lambarada aan siinay haddaan xujeyna ugu talagalay inaan xujadii ka rogno dadweynaha haddaba waxaa jira hadiyado aan ugu talagalay lacagtaas waxay u dhaxaysaa 5,000 ilaa 10 shilin lambarada lagu helaayana waa 1 ilaa 5 iyo 10 waa lambarada baqshadaha aan hayno oo lacagta aan ku ridnay lacagta cadadeeduna waa saan idin sheegay 5,000 ilaa 10 shilin haddaba maxamed waxaan jeclaan lahaa abaalmarintaadii adoo jawaabtii aad nasiisay ka duulayna in aad lambarka aad rabto 1 ilaa 5 iyo 10 ah aad qabsato wixii kugu jirana nasiibka leh lambarka buuxa hal eber baqshada 10 waxa ku jiraan rabaa kulay waa culustahay waxa ku jiraba waa culustahay laakiin waxaan jeclahay dadweynaha inaad tusto oo aad furto wixii aad heshay ku furto hortooda culayskeeda ayaan aqaan maadaama aan kamid ahay dadka ugu lacagta jecel dadka waa qiyaastii waa hagaag iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waa cilad waa ka yartaa intaan filayay markaasi waa ilaa 700 meelahaas waan filayaa abaalmarintii nasiibkaaga kuu soo qabtay inaad heshay waxaan halkan martida